wax soo saarka nolosha aadanaha ayay ku kala duwan yihiin dadweynaha ku dhaqan caasimadda marna maysan dhicin in qof bini'aadama wax soo saarka nolol maalmeedka qoyskiisa uu ka raadiyo hagaajinta qabuuro ku yaala magaalada Muqdisho waa qayb ka mid ah astaamaha lagu garan karo aadanaha koomkan saaran sida ay ugu nugul yihiin maaraynta habnololeedka qutul daruuriga Maxamed Siidow Sheekh Aadan waa aabe u istaagay raadinta qutul daruuriga 4 caruur iyo hooyadood waxaana inta badan nolosha qoyska uu ka raadiyo hagaajinta qabuuraha Macalin Nuur ee magaalada Muqdisho halkaasi oo ehelada dadkooda ay ku aasan yihiin qabuuraha uu ka hagaajiyo lacagaha uu ka helo nolosha qoyskiisa uu ku dabiro waxaan jirtay walaalow macaan waxaan oo dib aan ka qabo qabuuraha baan ka shaqeynay qabuuraha biyaha islaamka oo marka qabuuraha dadka loo imaado biyaha ku shuwa wax raashin waan haysta malaha $1 aan hala $1 aan hala aan ku noolaay gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye ayaa ka waramay sida ay ku ogaadeen nolosha xogta dhabta ah ee aabe Maxamed Siidow Sheekh Aadan caruurtiisa iyo xaaskiisa ay ku nool yihiin ninkan walaalkeen caawin ninkan waa soo garab istaagnay ninkan wuu dhibanay dhibkii la qaadi kara anaga ilaa maanta soo adeejiyo waxaan dad anaga messenger waa u nimid waxa la kulmay agaasimaha maalin dhaweyd xabaalaha suuqada ciidaas marna biyo ku shuba xaaskiisa biyaha markino qafka markay dhimato madaxay wuxuu soo qaaday 5 giirgaan mahana 10 giirgaan waa kaasa $10 heli 10 ka caaga aad u culisay giirgaanka aniga ay jeedaan ilaahay wadanisi xogaas ma qaadi karo 10 giirgaan ay soo qaadeen $1 ku shaqeysaa $1 aan soo qaadana waxan oo raashin nagu filan haddaan sokorta iyo waxaas aan soo gadano wax kale aan qabna malaha nolol xumada meesha aan ku noolnahay wax loo adkaysan karo malaha wadankaana biyo iyo waxba gaajo aan soo waday meeshan aan imaaneen wax hadda ilaahay amarkiisa badan wax aan haysana ma jirto anagana marka insha Allah taala maadaama halka uu nimid dad walaalaheen inaan shaqo u abuurno shaqo abuurkiisa ay kamid tahay wuxuu naga codsaday dukaan in loo furo oo ku shaqeysto shaqada ka duwan maalintii oo dhan $1 ku shaqeynay sida uu sheegay 10 giirjaan qaf qaaday oo hooyo isna easy cunuga wax xanuunsan ayuu leeyahay cunuga aad u dhibaataysan yahay wax daawo u geey malaha marka dadka muxsiniinta oo naqlay ma jeclahay in la taageero dadka dhulkii hooyo joogo Maxamed Siidow Sheekh Cali ayaa ka mahad celiyay ganacsigan cusub oo ay maanta u furtay hay'adda Alpha Trust isagoo sheegay in ganacsiga kadib uu rajeynayo in noloshiisa wax badan ay iska bedelaan markan adoon ilaahay soo adeeji ay imaanay hadda noloshayda oogaho waa isbedeshay wax bas sameeyay wax bas dadaal bas iyo qabtay meel bas waxa yeelay hadda alxamdulillah noloshayda hadda oogaho waa roon tahay wax oo hadda dhibkii oo hadda aan qabay oo qabuurahaas geedahaas aan u guray oo meeshaas rafaadka aan ku jiray hadda waa alxamdulillah maanta waa ka roonahay markan oo lii odsay maxad ka shaqeyn kartaa leeydeen ganacsi dukaan aan gal karaa eri dukaankii waana lay furay waana haddana waa lay amray wax oo hadda dib aan qabo ma jirto wixii dhan waa faata hase ahaatee madasha caawinaada loogu sameynayay aabe Maxamed Siidow Sheekh Aadan waxaa ku sugnaa Cabdisalaan Muumin oo kamid ah xubnaha hay'adda Alpha Trust oo mar walba isku daya sidii ay ku ogaan lahaayeen nolosha dadka dhibta haysato ee ku dhaqan gudaha dalka Soomaaliya عمر محمد صومنة Universal TV مقدشو